xildhibaan Mustafa Qodax oo ka tirsanaa aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhaweyd shaaciyay inuu iska casilay gabi ahaanba xilkii uu ka hayay aqalka sare ee Soomaaliya. Munaasabad ka dhacday wadanka Imaaraadka Carabta ayuu ku sheegay inuu caawa soo afmeeray inuu xil damba Soomaaliya ka qabto, isla markaana bayaankaasi uu cadeynayo shacabka Somaliland iyo ka Soomaaliyaba. Wuxuu sheegay Mustafa Qodax inaan Soomaaliya laga qirsanayn in Somaliland iyo Soomaaliya ahaayeen laba dal oo wax isku darsaday, taasina ay tahay mid ay khasab tahay inay qiraan Soomaaliya si loo wada hadlo. Haddaba munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna ku sugan wadanka Imaaraadka Carabta. waayo wax badan oo laga hadlaamay oo linay dadka reer Somaliland halkan aan ugu yimid Imaaraadka baa waxay garteen maadaama oo aan soo guriyo noqday oo ku noqonayo dalkaydii oo ku noqonayo جمهورية بركة نيت وما. Yes. إني كنتي يسولو وياه أو أي هل كان لفتة أنا هون ده عارفين إياه كمان ديارة الرعاية دبي يدو تركين اللي يجلسوا بيه كل تجدون إني إياه هنا سيما مسان كنتي شرف بيت هاي هذه نرتي وي وحيجلس لي ذيك النساء إن haddaan hawl u hayay Somaliland inaan macnaha shaqada si lama laabo ama aan ka maqnaado ama dalka joogay ayay isu dhiirigelinaysaa aad iyo aad u mahadsantihiin. ugu horeyn halkan waxaan doonayaa inaan ka caddeeyo dadka intii taqaanay si shakhsiyan iyo intaan aqoonin inta TV-yada iga baratay iyo social media dhammaantiin qof kasta oo Soomaali ah waxaan doonayaa halkan caawa inaan ka caddeeyo horta inaan muddo 4 sano oo aan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya aan ka tirsanaa labadiisa aqalka sare ee sanadka ina soo gabagabeeyay hawsha caawa hadii la hayraahdo صعب يا محمد halkan ka cadeeyo haday muddadu gabagaba tahay haday sii soconayso wax lagu darayo iyada hadii dib la isu sharaxi laaba inaan hawsha faraha ka qaaday isla markaana aan hortiina ka diro isla markaana aan halkan hortiina ka diro 4 sanadood imaka inaan ka jeclaan lahaa inaan wax kala geliyo macnaha oon hawl kala gelin inaan geliyo inay macnaha iga fiicnaan lahayd aan ka helo waayo aragnimo dadku hay kuma jeertaan inaan hadallo dee halkii aan ka imiyo Somaliland iyo oon difaacay wax badan u yiri haddana aniga runtii ima aha inaan wax 4 sanadood aan maqnaa inaan wax wanaagsan qabtay anigu ma dareemayo runtii waxaan aaminsanahay inaan hawlo kale haddaan qaban aan ku foofi lahaa inuu waqtigaasi iga lumay baan aaminsanahay saasaan aaminsanahay waa laga yaabaa in ujeedooyinkii dee aan u tegey waa laga yaabaa dadku inay siyaabo kala duwan iyo anglis kala duwan inay dadku ka eegaan baa laga yaabaa xaqiiqatan laakiin anigu waxaan u tegey oo imikadana aan jecelahay aan hungoogo oo yaan soo arkin oo aan ka noqdo oo waxaa la yidhi dayaxa haddii la waayo xidigaha lagu socdaayo anigu waxaan u arkaa dee waxaan qaban karaa noloshayda inta gaaban ee yar ee aan noolahay waxaan qaban karaa inuu wax wanaagsan oo raad wanaagsan ka tago oo dadkaygu aanay macnaha qoomamaynin aniguna aanan qoomamaynin aakhira lixibka noloshayda inuu ahaadaan jecel waqtigaygu galo koonfur markaan tegey runtii waxaan aaminsanaa ha qasnaato meeshaas isdhexyaac iyo anarki iyo nidaam xumaha ka jirto laakiin waxyaabo badan oon aaminsanaa halkaa inaan ugu tegi doono ayaana runtii ugu tegin oo siyaasiyiinta Soomaalida ee halkaa joogta siday u fikirayeen aan marka hore perception aan ka haystay ayaan macnaha waayay oo halkaa ugu tegin sababta ugu weyn ee hungada keentayna haddii xitaa fikirkaagu shaqeyn waayo oo meesha tagtay fikirkaagu ka shaqeyn waayo laakiin aad aragto dad waxaan xantaynayo oo siyaasiyiin oo kula garaada rajay kugu kordhinaysaa iyo halganka inaad sii wado ay xitaa taas kugu kordhinaysaa xataa taasaan waayay xaqiiqatan inaan macnaha arko Soomaalinimadan doonayay iyo wixii aan kaga tegay Somaliland ee wanaag ahaa ee
dhibaatooyin hore oo ku dhacay oo ay dawladdii Soomaaliya ee la wada lahaayeen qaybta ku lahayn ay geysatay ahaa in waxa xataa laga sheekeeyo oo laga qira meesha iska daahiyo in xataa inta koonfur dadka koonfur ku silcaya ee ku dayacan halkaa fikirkii macnaha loogu danayn lahaa ayaan halkaa ugu teginba marka waxay ka dhigan tahay waxa laga yaabaa inagu inaynu si gaar ah reer Soomaaliland inay u cabanayaan oo ay halkaa dadka joogay siyaasiyiinta ah iyo inay ka cabanayaan baa laga yaabaa laakiin xaqiiqada halkaa taala marka tagto waxa weeye dulmiga ugu badan siyaasiyiinta halkaa jooga iyo dhibaatada ugu badan cid ay ku hayaan maba aha reer Soomaaliland waa dadkii halkaa u dhashay ee reer koonfureedka ahaa ee xaq u lahaa inay ammaan helaan oo nabad helaan oo dawlad helaan oo maamul helaan dadka dhibta ugu badan ay ku hayaan dadkaas waa dadka iska badaf marka hadda Soomaaliland iyo wixii ka soo hara in wixii loo sameyn lahaa wanaaga runtii inaan halkan caawa kaga sheekeeyo de wax badan oo arkay iyo siyaasad ahaan waxaan aaminsanaa iyo tadawurkii iyo waayo-aragnimadeedii 4 sano waxaan la kulmay ma runtii ma inoo saamaxay waqtiyo kale iyo haddaynu sii noolaano markan haddii la yiraahdo wadankii tago ilaa 10 sano ka bacdi ayaan de kolba intan ka sheekeyn kara iyo waxa igu soo dhaca mar haddaan de siyaasadii ka tagin siyaasadii wali maan oran de maan inaan ka baxo siyaasadda go'aanka ma gaarin mar haddaan siyaasadda ku sii jirayo waa qasab waxaan arkay iyo de waxay sida aniga wixii la moodeen iyo sidaan wax arkay iyo imaka the way forward sidaan wax arko waan ka sii sheekeyn doonaa xataa waxaan isku day doonaa inaan weli dadka reer koonfureedka Soomaaliya inaan anigoo reer Soomaaliland noqday oo xataa mabda ay iska tanaasulay midnimadoonka inaan iyaga xitaa halkan ugu jiro halkan joogaba aan uga dagaalamo wanaagooda ka shaqeeyaan hadii la yiraahdo waayo dadka walaaleyna ima saamaxayso runtii inaan halkan caawa kaga wada sheekayno laakiin wax in yar baan hadii la yiraahdo idinka taabanaya principally waana idin sheegay waxaana la filayaa maalmaha soo socda inuu soo gaadho magaalada Hargeysa Mustafa Qodax kusoo dhawaada Border Mills waa warshada daqiiqdii calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka Border Mills ay wax u wado sidoo kale sharikada Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda sharikadan ay soo saarta ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileeda sharikadu maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka Border Millsna lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills hiigsi sare iyo hadaf lagu midoobay idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tagin markaad sariftoonaysan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir kaga sarifo saacad kasta sariflaha Cabdinaasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saadka iyo dahabka ee halkan idinka muuqda haddaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir oo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda